السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kasto aad joogtaan. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta oo isniina. barnaamijyada aan idiin soo gudbinayno taariikhduna ay tahay 8 bisha Luulyo sanadka 2024. haddaba qodobo muhiim ah ayaa barnaamijkeenan ugu horeeya aan idinkugu soo gudbin doonaa. Iiraan oo si adag ugu hanjabtay Israa'iil. haddaba maxay tiri maxaa la isku qabtay xagee la iska hayaa. haddaba sheeko aad u xiiso badan oo ku saabsan Iiraan oo hanjabaadeedii ugu cuslayd muddooyinkan u dirtay Israa'iil iyo Israa'iil oo baqdin ay ka qabto arrintaas wasiirkeeda gaashaandhigga u dirtay Washington si uu uga qayb galo shirka NATO uga furmaya talaadada halkaas isagoo kala hadli doona madaxda NATO sidii Israa'iil looga celin lahaa Iiraan. haddaba war xasaasi ah oo ku saabsan arrintan iyo Iiraan waxa ay ku hanjabayso ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkaan idinkugu haynaa warbaahinta waxaa qabsaday gaar ahaan baraha bulshada sheeko cajiiba oo laga soo qaatay hadalkii shalay uu jeediyay Abu Cubayda. wuxuu yidhi Abu Cubayda waxaan qorannay askar, kuwa kalena waxay doonayaan inay askar noqdaan laakiin waan iska celinay. mar kale ayaan idin askarayn doonaa ood nagu soo biiri doontaan ayaan ku niri. bilcagsi halka Israa'iil wax ciidan qoranaya iska daaya wax raba xataa aanay jirin oo la kala cararayo. haddaba muxuu yahay farqiga u dhaxeeya in halkan askarta la bariyo halkanna askarta laga cararo. haddaba waxyaabihii laga qoray sheekadan cajiibka badan ayaan iyana barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Gaza xaaladdu halka ay marayso, warbixino ay soo kala saareen Saraaya al-Qudus iyo al-Qassam. haddaba qodobadaasi iyo wixii warar ee soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idinla wadaagi doonaa. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalay maanta oo isniina. barnaamijkanna waa kii ugu horeeyay aan idiin soo gudbinayo. haddaba barnaamijka waxaa noo soo socda qodobo aada u xiiso badan oo ay ku jiraan Iiraan oo hanjabaadii ugu cuslayd u dirtay Israa'iil iyo Israa'iil oo meel ay joogsatala baqdin darteed. haddaba sida ay wax u jiraan iyo wixii laga qoray sheekada xiisaha leh barnaamijkan idinkugu hayaa. laakiin marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa sida aad la socotaan shalay waxaa hadal jeediyey afhayeenka Kataa'ibul Qassam Abu Cubayda wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah. haddaba qodobka muhiimka ah ee aanu rabno inaynu barnaamijkan ku qaadano ayaa wuxuu yahay wuxuu sheegay waxaynu qorannay kumanaan ciidan oo cusub ayaan qorannay. kuwa kalena iyagoo diyaar ah inay nagu soo biiraan raba ayaan annaga iska celinay. waxaan ku niri hadda ma aha noo jooga mar kalaan idin qoraynaa. macnaha sida ay dadku u rabaan inay ku biiraan kooxdooda muqaawamada ay ka mid noqdaan. dadkanu de waa la silciyey, nin reerkiisii la laayay, waalidkiisii la laayay, caruurtiisii la laayay. marka dambe wuxuu isleeyahay adigana waa lagu dili doonaa, qarax ku dhimo ama diyaarad ha ku duqaysay waa tegi doontaa, laakiin waxaad tagtaa adoo dagaal ku jira dhimo intii adoo meel iska fadhiya aad dhiman lahayd. way qoranayaan marka war aniga halaygu daro, waa aniga al-Qassaamaan rabaa, war aniga al-Yaasiinka halii dhiibo, war jooga la leeyahay. sawirkan marka halkan ku dhagan ayaa warbaahinta saas loo wiifinayaa. Israa'iiliyiintii oo cararaya iyo nimankii Xamaas ahaa oo maaragtay askarnimadii raba oo inay al-Qassam ku biiraan raba shacabkii Falastiin. markaasaa marka Al-Jazeera warbixin ka qortay maanta waxay tiri waxaa qabsaday baraha bulshada oo dhan meel kastoo ay dadku ku xiriiraan qodobka ku saabsan waxaa la keenayaa nimankii xerowdiimeedka ahaa. xerowdiimeed waa garanaysaan, nimankii xerowdiimeedka Yahuudda ahaa oo leh
annaga askar ma rabno cararayo oo laleeyahay askartii yaa qoranaya yahuudda oo qof qoranaysa aanay jirin dowladdii oo qaylinaysa abaanduulihii oo la ciidana loo baahan yahay wasiirkii gaashaandhigga ciidan wax ciidan raba male waa la kala cararaa halkaana dadku waxay leeyihiin meel la kala joogsada male askar yaa raba haddii la yidhaha diyaar waayo kumanaana la celcelinayaa laleeyahay jooga kumanaan kalena haddaa lagu soo daray alqasaam marka waxay leeyihiin aljaziira waxay leedahay halkaas marka waxaa ka muuqanaya farqiga waxa meesha ka jira saaxada dagaalka meesha dagaalku ka socdo waxa ka jira qolana waxay rabaan inay halkaa ku dhintaan iyagoo dagaalamaya inay shahaado qaataan oo shahiid noqdaanay rabaan qolana dagaal ma rabaan ee way ka cararayaan halkaas markaasaa baraha bulshada waxaa leeyahay kuwana waa cararayaan waa lasoo qasbayaa dagaal ma rabaan wax qoranaa ciidan male kuwana meelay kala geeyaanay laayiin markaa waxaa leeyahay yaa guulaysanaa marka waa iska cadday leeyihin marka dadku waxay leeyihiin ninka dhulkiisa difaacanaya ee inuu u dhintan rabaa ayaa guulaysanaya marka ugu dambaysa leeyahay waqtigay rabtaa qaadato haddaba marka aljaziira warbixin cajiiba arrintaa ka diyaarisay isla sawirkan meelaha wareegayana soo qaadatay waxay leedahay dadka wax ku qora baraha bulshada waxay isbarbar dhigayaan muqaawamada falastiiniyiinta oo kumanaan dagaalyahan ah qoratay iyo askarta Israa'iil oo laga cararayo xataa kuwii askarta ahaa fasax hadday qaataan ma soo noqonayaan iska dhaaf kuwa kale cusub inay yimaadaan haddaba dadka wax ku qora baraha bulshada ayay leedahay jaziira waxay soo qaadanayaan kelimad uu shalay jeediyey afayeenka militariga kataa'ibul qasaam abu cubayda kaasoo markaa uu kaga hadlayay maalintii 275 ee dagaalka duufaan al aqsa oo socda kaasoo bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore in markaa uu kaga hadlay in askar fara badan ay qorteen kuwa kalena ay yiraahdeen annaga idin soo wici doona u fiirsada muqaarana lagu sameeyaa isbarbardhig maalin hore waxaan idin sheegay barnaamijyada ku jiray in la socoteen aan filayaa qaar kamid ah askartii Israa'iil oo fasax aaday ayaa diiday inay soo laabtaan soo noqonayeen dheer meeshaas ma rabno iska dhaaf yaa kuwa cusub in la qoro iska dhaaf kuwii xataa tagay ma soo noqonayaan dagaal ma la rabo xag marka niyad ahaan sidee taalilee marka quluubta nimanka dagaalamaya nin dagaalka raba inuu ku dhinta raba inuu shahiida raba inuu dagaalamo wadankiisa difaaca dadkiisa difaacada raba inuu argoosta raba dhibka loo geystay dadkiisa iyo ehelkiisa iyo nin aan dagaal rabin say u wada diriri karaan alle marka wadna ay ku wada diriraan meesha ma yaalo marka sheekadaasu waa sheekada hadda haysata jaziirana ay qortay baraha bulshada isbarbardhig halkaasa oo la sameynayo sheekada Iiraan iyo Israa'iil oo meel xun maraysa way noo soo socotaa laakiin marka hore waxaan ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dagaalada ka soconaya Gaza maxaa soo kordhay sidii caadada ahayd dagaalku wuu socdaa hadday tahay shujaaciya hadday tahay rafax hadday tahay xaafadaha kale Israa'iil iyaduna duqayntu way wadaa dadkii rayidka inay qaxaan iyaguna way socotaa meeshaas marka dhibaatadaas ka taagan dagaalkii waa socdaa wada hadaladiina loo balansanaa maanta waa la aaday Israa'iil hadda warbaahinteeda qaar kamid ah waxay qorayaan waxay leeyihiin wafdiga Israa'iil oo hogaaminayo madaxa sirdoonka Mossad Masar ay aadeen si markaa wada hadaladii iyo hawlihii ay u sii ambaqaadaan hawshaas iyaduna halkaas ay ka socotaa halkana nagtaa la isku hayaa meeshan wada hadal iyo waxa kan iyo lama qoro muqaawamo niman la yiraahdo iyo nimankan meesha galay ayaa iyaguna iska raacaya haddaba marka wararkii ugu dambeeyay Gaza waxa la leeyahay Saraya al-Qudus war ayay soo saartay waxay tiri waxaynu qarxinay laba kamid ah aaliyaadka ama baabuurta gaashaaman ee ciidanka Israa'iil ay wateen deegaanka la yiraahdo Tel al-Hawa haddaba
saraaya alqudus ayaa baahisay inay qarax u samaysay oo ay qarxisay laba ka mid a aaliyaadka, waxaana ay sheegeen inay u dhigeen miinooyin kuwa dhulka lagu xabaalo ah oo markaa dhulka ay ugu aaseen. waxaana la sheegay in weerarkaas uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo talal hawa, waxayna sheegeen labadaas baabuur inay qarxiyeen saacadihii lasoo dhaafay. dabcan wixii ku jirayna waa tageen. al-qasaam ayaa iyaduna war soo saartay goordhow, waxay tidhi waxaynu bartilmaameedsanay ciidamada gumaystaha ee ku sugan deegaanka la yidhaahdo natsaarim. kataa'ibul qasaam waxay sheegtay inay bartilmaameedsadeen ciidanka gumaystaha sida ay yidhaahdeen deegaanka la yidhaahdo natsaarim, waxaana ku garaacnay yidhaahdeen sawaariiqda riddada gaaban oo markaa cabirkoodu yahay 114 milimitir. isla qodobkan waa kii shalay uu abu cubayda isna ka hadlay, uu lahaa natsaarim meesha waxaa la yidhahdaa natsaarim waxay ku taallaa meesha kala qaybisa oo hadda saldhigga ay ka samaysteen koonfurta iyo waqooyiga, oo ay leeyihiin ma ka baxayno, xataa heshiis hadduu dhaco halkaa inaan ka baxno ma rabno, haddii kale nimankii muqaawamada ayaa isu socsoconaya, si fududa isugu soconayaan, saa waa ay aaminsan yihiin. marka meeshaas wuxuu yidhi waa laga jiidi doonaa, iyagoo inay baxaan way diideene waa laga jiidaa, meydkoodaa laga jiidaa meeshuu dhahayo waayo. marka isla maantaba way ku socotaa, waa ujeedaan nagtaa laga geliyay. marka madaafiicdan maalmahan waxay la soo baxeen 114 milimitir laleeyahay oo riddada gaaban ah, marka wuuna ka xoog badan yahay hoobiyaha, waana madfac isaguna la qaadqaadi karo, nagta ka gelinayo. waa midka ay ka qayliyeen muddadii ugu dambeysay. marka halkaasaa iyaduna xaaja maraysaa oo xaaladdu ay maraysaa. waayahay halkaasaan kaga gudbaynaa marka qodobkaas isaguna. qodobka ugu dambeeya barnaamijkayga ugu horeeya maanta oo isniina, waxaan idinkugu hayaa sheeko aada u xiiso badan. barnaamijkaygii saddexaad ee xalay waxaan idinkula socodsiiyey wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil inuu aaday Washington. talaadada waxaa ka furmaya berito shirka NATO madaxdeeda, sanad guuradii 75aad ayaa halkaa looga dabaaldegi doonaa. Israa'iil marka NATO kuma jirto. NATO haddaysan ku jirin maxay ka doonaysaa? xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ayaa war soo saaray. Israa'iil wuxuu yidhi wuxuu la kulmi doonaa madaxdaas, wuxuu kala hadli doonaa cabsida weyn ee Israa'iil ay ka qabto Iiraan. warkaalaya Iiraan naga dhiciya waayo. u fiirsada meesha hadal weyn ku jira. NATO u tagay macalinka weyn iyo xirtiisa u badan halkaas waxay ku dhahaysaa Iiraan naga dhici. sidee wax u jiraan marka? Iiraan maxay samaysay? maxayse uga baqaysaa Iiraan? haddaba Iiraana war soo saartay marka maanta. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa waxaa la sheegay in Iiraan ay taageeri doonto oo markaa ay qayb weyn ka qaadan doonto weerar kasta oo gardarra ah oo Israa'iil xaggeeda kaga yimaada inay iska difaacdo. haddaba waxaa la sheegayaa, warbixintu way sii socotaa, la leeyahay Lubnaan haddii lasoo weeraro dhulkeeda iyo dadkeeda oo amnigeeda khatar la geliyo, waxay Iiraan diyaar u tahay inay wax allaalay wixii awooda ay haysato ay Lubnaan ku difaaci doonto. haddaba fariintaas waxaa hawada loo mariyay Israa'iil, waxaana loo sheegay inay qaadi doonto cawaaqibka ka dhasha weerar ay ku qaado Lubnaan. waxaana loo sheegay in ay ku xisaabtanto haddii Lubnaan ay si weyn weerar weyn ku qaado oo meesha hadda dagaalku ka socdo meelaan ahayn ay weerarto oo dagaal weyn ay ku qaado, in Iiraan iyaduna aysan gacmaha laaban doonin. wadaadkii Ayatullaahi Khamenei Netanyahu wuxuu leeyahay, Netanyahu yow haddaa halkaas isku aado waa maalinkay kuu dhammaan lahayd.